halkan waa xarunta hay'adda dambibaarista booliiska Soomaaliyeed ee CID-da waa xilli shaqo goobtuna waa mashquul ilinka hore ee xarunta iyo gudahaba waxaa safaf dhaadheer loogu jira sidii qof waliba uu heli lahaa warqadda cadaynaysa inuusan wax dambi ah dalkan ka galin haddaba warbixintan waxaan ugu kuurgalnay helista xaqiiqda cabashada shacabka ay ka muujinayaan hay'addan wax isdabamarin ama masuq goobta shaqo ka jirta iyo qaabka loo bixinayo warqadaha cadaynta waa qofka shaqada loo fulinayo inuu dambi galay in kale mashquul badan oo jira iyo waqtiga shaqada loo qabto muwaadiniinta oo yar dadku waxay halkan yimaadaan salaada subax kadib waxaana dadka loo kala hormariyaa siday u soo kala horeeyaan laakiin in sidaas shaqada u fusho ma dhacdo sababtu waxay tahay askariga ilinka hore ee xarunta jooga ilaa iyo shaqaalaha kale ee shaqada gacanta ku haya waxay ka wada siman yihiin inay mudnaanta siiyaan qofka laaluusha ama lacag dheeraad siiya iyadoo wali uu joogo qofkii waqtiga hore yimid halkan mudnaana in shaqada loo hormariyo amintu goor ay tahay 6 subaxnimo oo ay weheliso dhowr daqiiqo ayaan gaaray xarunta dambaarista si adeeg aan raba liigu fuliyo oo inaan helo warqadda cadaynaysa dambi la'aanta laakiin dad badan ayaa hortubna iridka hore ee goobta shaqada kuwaasi oo saf ugu jiray inay galaan gudaha si adeeg ay doonayaan loogu fuliyo markii aan dhankay ka gala safka misna dhanka bidixee safka waxa taagnaa askari dadka u sheegaya in cidii lacag cadadeeda u dhaxayso 10 ilaa iyo $20 dhiiba inuu u fuudeenay gelista gudaha iyo goobta shaqada iyadoo wali ay taagan yihiin dadkii waqtiga hore yimid halkan hadal haynta dadka banaanka jooga ee arkaya musuqmaasuqa iyo dadka la gudbinaya waa sidan inkastoo ay xusid mudan tahay in codadka aan idin soo gudbin doona ay yihiin kuwa ay raadiyo kulmiye si qarsoodi u duubtay saakan intaan wareegayna ninkaas kaliya sababkiis safar ugu noqoto safar ugu noqoto marka fiir ma xaga laga soo gelnaa wallahi hana shartada ana dhinac ka wadna war dagaalamay xilliga iimaanay soo ko markadana lahayna mudaaharaadna waa qarna dadkan waa habaari iyadoo aan wato boonadii canshuur bixinta ee wasaaradda maaliyadda haddana waxaan ku qasbanaaday inaan bixiyo lacag dheeraada si aan gudaha u galo dhammaan dadka gudaha ku jira waxay isugu jiraan dad wadadeeda oo kala soo maray iyo kuwa si caadi ah ku soo galay laakiin waa mar kale saf dheer iyo inaan jeebkayga adeegsado si dadkaasi la iga hormariyo waxa ii muuqanaya wada shaqayn iyo wada qaybsi lacagaha dheeraadka ee laga qaado dadkan loo fududeynayo hawsha laga soo bilaabo askariga iridka jooga ilaa iyo shaqaalaha gudaha ku jira waxaan gaaray goobta lagu qaado faraha waxaa laga qaada faro si aan u ogaado xilliga ugu sokaysa in heli karo jawaabta waxaan weydiiyay qofkii faraha iga qaaday wuxuu si hoose igu sheegay inaan mar kale bixiyo lacag dheeraada isla markaasina si degdeg aan ku heli doono codka soo socda waa muran dhex maray askari qof loo adeegay balse wali shaqadii aan loo dhameysan oo qabiyo ay ka tahay waxa uu sheegayaa in 4 maalin halkan uu ku soo laabanayo diyaarinta warbixintan inta aan ku guda jiro waxa ii soo baxday inay siin jireen hanaan control oo buuxdo oo qofka la marsiiyo malahan xafiisyo lagu shaqeeyo iyo qalab horumarsan oo hay'adani ay adeegsato maxaa cawaaqib xumo oo ka dhalan kara musuqmaasuqa jira maxay kala socdaan guddiga maaliyadda golaha shacabka lacagahan dheeraadka ee shacabka lagu xujeeyo